tan khiyaarteena kusoo dhawaada tabin kale iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta duhurnimadan barnaamijkeena maxaa cusub waxaan ku hayaa sheekooyin dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta Madrid baan soo mari doonaa qaybo kala duwan baan ka eegi doonaa cabsi ayaana laga soo sheegayaa Madrid ogsoonow ha ku degdegin kuwaasi kooxda kubadda cagta ee City war baan kaaga hayaa Manchester United ha ka tagin nadiga kubadda cagta ee Blaugrana subax markaad hor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan channelka subscribe saaro halkani waa dunida ciyaaraha magacaygu Cabduqaadir Qeyska waxaan ka codsanayaa muuqaalka like inaad ugu dhiirigelisid siina share gareysid aad baad u mahadsantahay daawade aanu ku bilownay wiilkan waxaa la yiraahdaa Kylian Mbappe ninkan waxa uu isagu noqday dhammaan tartamadii kala duwanaa uu isagu ka qayb galay uu isagu gool ka dhaliyo waa laacibkii ugu horeeyay baa lagu leeyahay sameynaya wuxuu ka qayb galay markii ugu horeysay La Liga waa dhaliyay oo markii ugu horeysay Super Cup waa dhalinaya oo Champions League saas oo kale oo Super Cup Spain saas oo kale oo markaa Copa del Rey saas oo kale oo koobkii naadida dunida ugu dambeeyay waa ka isagu wacdareynaya isla markaana cajiiba unbelievable waxba lagama qaban karayo ninkan aad arkaysaan waxa la yiraahdaa Xavi Alonso waa mid ka mid ah macallimiinta waqtiyadii ugu dambeeyay aad u qabsaday caalamkan marka la eego waliba aad baa loo amaanaya mustawihiisa saaxirka bandhigiisa daraandar kale waxa lagu leeyahay shabakada aasna ay ku sheegaysaa waa uu gartay baa la yiri Alonso qaabka ay PSG u cadaadinayso kooxaha yani PSG markay kubadda haysato ciyaarayso ma laakiin marka kubadda ka qaadatid ku cadaadinaysaa cadaadiskaas ama pressing high press ay sameynayaan high pressing ay sameynayaan afwan waxa lagu leeyahay ama dhaqdiga markaasi aad bay u garanayaan runtii Alonso waa u fahmay siday ku bilaabayaan durbo waxa uu qorsheeyay baa leeyahay qaabkii lagu joojin lahaa Madriday Dortmund ma dadkan ogsoonaada dadkan Europe idinkeeda tara saaran cid joojiso wallahi la City wala Liverpool wala mid kale wala kala iska ilmaama chip chap bay ka soo dhigeen waa qarbudeen sida kelmadu macna u leedahay horta ninka Xavi Alonso sidoo kale waa la amaanaya waxa lagu amaanaya mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid hadda haysato kaasoo lagu magacaabo Arda Güler inuu noqday dhaymanka kooxda waliba uu badbaadiyay markaasi yani ninkan waxa la leeyahay waxa uu soo bandhigay quality-giisa sida uu markaasi isagu u wacdareynayo markaad fiirisid markaa ninkan waxa uu noqday mid ka mid ah ugu muhiimsan ee qadka dhexe waqti xaadirkan Spain iyo caalamka Arda Güler markaa digtay markii hore Ancelotti wuxuu ahaa bedelka Rodrigo laakiin Arda wariyaan gadaashiisa Arda xora marka ciyaarta ay ku bilaabato kubadda loo dhiibo xor baa tahay baa leeyahay qaado meesha doonta garoonka istaag waliba marka masaaxaba haysata marka tani waxay siisay baa leeyahay marka in si wanaagsan isagu uu u soo ciyaaro isla markaana uu wacdareeyo tanina waxa lagu amaanayaa ninkii Xavi Alonso sidoo kale waxa la amaanayaa wiilka kale ee nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ka tirsan Gonzalo Garcia waxa la 10 milyan baa markaasi dushiisa saaran 10 milyan ayaa dushiisa saaran wararkii ugu dambeeyay isbay tilmaamayaan 10 milyan hadda lacag yar ma 10 milyan baa Madrid u imanaysa markaasi almost lacag isagoo kala waa anfacaya sidoo kale nadiga kubadda cagta Real Madrid waxa leeyahay khadka dhexe xalaareedka hadday heli weydo Vitinha aad bay u dhibaatoon doontaa ka waran ninka hadii la yiraahdo Vitinha ba Madrid baa ku rabta waa waalanaya albaabku ka soo baxaya meesha waa markii Nasr al-Khalifa isku kici lahaayeen qaac laga kicin lahaa isagana waa arki doonaa war kuwii Chelsea ahaa waa inkaariina ma dhigi karay ma garanayo waxaana weeriyana way haystaan Joao Felix ku hadda la keenay oo markaas aad arkaysa Nuno Mendes waxa jooga Pedro waxa jooga garabkii kale markaas Dilab hadda la keenay Sterling waxa jooga ninkii ahaa Jackson Nkunku Borja Pedro iyo labada cunugo yaryarka kuguma darin Palmer haddana ogsoonoya garab qaddex baan ku xisaabiyay laakiin weerarada waa kuwana markaasi meel la geeyay baa laay waxa la tilmaamay afar xidig oo kamid in la diri doono yani Nkunku Jackson Joao Felix Nuno Mendes intuba way daneynayaan way baxayaan markaasi oo Mendes wuxuu aaday Arsenal Nkunku wuxuu aaday Manchester United kuwa kale meel baa loo raadinaya baa leey Man City iyo buush garanaysa qaadashada wiilka lagu magacaabo Dumfries Fabrizio Romano ayaa qarxiyay markaasi 25 milyan kaliya in lagu heli karayo samarkaana ninka lagu wareegi karo wararka ka imanaya wadankaasi Ingiriiska waxay ku waramayaan kooxda kubadda cagta ee Man City in ay rabto laacibkan in markaa tatwiir ay samayso waliba anigu waxaan qabaa horta laacibka uu jiraanada xoogan uu leeyahay laakiin quality badan ma laha yani xirfad badan ma laha skills markaa gambiskiisa iyo waa ma aha
laakiin haddii uu sii joogo waxaan qabaa uu Pep Guardiola ka hoos ciyaaro inuu horumari karo tatawur uu gaari karo markaas ama tatwiir lagu samayn karo marka ninka sahashanin waa mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan ogsoonow wararkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United waxaa leeyahay waxay raadaceynaysaa oo si gaar ah ula socotaa wiilka lagu magacaabo Dusan Vlahovic Juventus iyo isaga laacibkan waxay ka gaartay qir iyo qir meeshii ugu xumayd bay maraysaa haddaan ku iraada ka waran ninkan waxaa lagu leeyahay heer waxay ka gaartay Juventus lacagaha lagu burburinayo heshiiskiisa ka badayay in la yiraahdo terminate baa sameynayna waa kansalayna waa la burburinaya si kale aan kuma heshiin karno yani koox haddii loo keeno waxaa leeyahay mar rabo uu leeyahay يعني وكو أدكينيا مركزي حال كمل حنبو قاري يوفنتوس يولي باللاعبك وركي ugu dambeyn waxay tilmaamayaan in suuragal ba tahay in lagu kala tago sheekada oo niyo maadsantahay waa kansalina heshiiskaaga kooxda doonta ku biir adiguna mushaaraadkaaga ka tanazul markaas sidaas baa laga yaabaa inay ku kala tagaan wararkii ugu dambeeyay sibay tilmaamayaan waa laga yaabaa inay wax kala ka soo kordhaan laakiin Man United baa hadda aad loogu saadaalinaya Fernando Polo waa mid kamid ah wariyaasha aadka loo garanayo Catalonia wuxuu leeyahay canugan Rooney waxaa dhici karta xilliyeedka dambe in amaah lagu diro oo isla Copenhagen la siiyo laakiin mid jirta waxay tahay xilliyeedka waa la keeni doonaa kulamada diyaar garowga xilliyeedka uu ciyaari doonaa waxa lagu qiimeyn doonaa canugan quality-ga wado yani sida uu wacdareeyay baa la eegi doonaa kadibna haddii nadiga uu aragto ama Hansi Flick uu arko inuu sii joogi karo waa sii joogaya ama waa kursi keedka la dhigay laakiin idinka sababta uu la soo wareegtay waxay ahayd in aad tiraadaan bedelka Lamine Yamal noo ciyaar haddaad tirahdaan waa celinayna yaa ciyaari doona bedelka Tony Fernandes iyo waliba Yan Virgili labaduba labada xidig ee akademiyada la Messi hadda ka soo baxay ee la rabo markaas saf kooxda kubadda cagta ee Barcelona la ciyaarsiiyo markaas Yan Virgili waa canu kala balaya cabsiya iyo waliba mid ka kale asaashanin war Luis Diaz warkiisu waa weyn yahay warka Luis Diaz Saka waa sheeka kale duurimadan war update Fernando Polo waa wariyaasha lagu kalsoonida badan ee Catalonia Fernando Polo waa warihii ugu horeeyay ee sheegay isla markaana yiri ninkan heshiiskiisa waa istaagay kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba laacibkana xaalkoodu ma qurux badna waa ninkii sheegay markaas Fernando Polo ayaa markaa hadda aad ugu dhow maamulka Barcelona waxa leeyahay wakiilka Luis Diaz wuxuu u sheegay naadiga kubadda cagta ee markaa Barcelona in Liverpool ay ku qasban tahay laacibin inay iyagu iibiyaan sabab ku aadan xidigaha faraha badan ee suuqa markaas ay u geliyeen yani haddii 60 milyan dalab ay ka gudbiyaan waa laga yaabaa 70 milyan inay dhahaan markaasi 10 milyan oo kale ama 15 milyan oo kale oo ay 32 milyan ay ku soo qaateen waa sax laacibku inuu qaangaar yahay oo daadii marka aan ka hadlayaa kubadda cagta daadii kubadda cagta 5 ilaa 8 waa qaangaarka kubadda cagta laga hadlayaa ma tii qaangaar kale halkan cunuga wacdareyn kara warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan marka wakiilka Luis Diaz wuxuu u tagay Barcelona wuxuuna u sheegay Liverpool inay dib ku jirto inay rabto inay xidig iibiso oo inay ku qasban tahay buu yiri sidaas daraadeed isku day inaad la markaa u tagtaan kooxda markaasi laakiin ogsoonow Liverpool iyada xidig u iibinaysa sababtoo waxay tahay striker bay rabtaa markaasi way dir doontaa Nuno markaasi Nunes laakiin weeryahan bay soo qaadanaysaa shaki kuma jiro Liverpool weeryahanad badan bay raadinaysaa markaa marka waan arki doonaa xidiga iyagu ay qaadan doonaan Benjamin Sesko ba saacadii ugu dambeeyay la tilmaamay kaas inuu noqon karo Fernando Polo wuxuu sidoo kale leeyahay Barcelona waxa hubaal abu yiri in dalab ay markaa ka gudbin doonto ninkii Luis Diaz laakiin goormay noqonaysaa Luis Diaz maamulka Liverpool u tagi doonaa wuxuu dhihi doonaa ani waxaan rabaa inaan baxo laakiin degdegtan ma aha baa leeyahay wuxuu leeyahay nadigu waxay rabtaa inay xogaa shabtan degto jamaahiirta xaalad murugo bay ku jiraan geeridii Diego Jota laakiin haddana laacibku uu dalban doonaa saacad anigu wuxuu riyadii Barcelona way mar qurba sheekadii soo martaa sidaas daraadeed anigu waxaan rabaa inaan markaasi baxo wuxuu yiri Fernando Polo waa wariyo aan ku sheegay waaba ku tilmaamay inuu kamid yahay ku aadka loogu jecel yahay Catalonia laguna kalsoonida badan yahay Romero iska dhab waaye waa wax badan ku qaaqla caadi wanika Luis Diaz wuxuu yiri marka diyaar buu yahay Barcelona inuu ku biir isagoo aan shardi ku xireyn wuxuu yiri inuu shardi mid ku xirayo maxaa rabtiima markaas shardiga aniga ma yeelaya ma jirto ma warraba shardi ma li diiwaan gelinaya mise hay diiwaan gelinina diyaar baa inay ha jamay xataa diyaar baa inay horta ma idinku mid ku soo biiraya buu yiri 4 sano 3 sano min ciyaaraya waxa kale ma warraba ani marka wakiilka wax qodob oo aniga aan ku shardinaya ma le buu yiri markaas marka wasaas baa dhici karta markaas macnaha amahay ku diri karta hadii diiwaan gelin weyso 6 bil amahay ku diraysa January uu soo noqonaya marka
marka waan arki doonaa aad u maasantihiin channelka fadlan subscribe saaro si share garee saaxiibadiin la wadaaga meel kasta oo aad joogtaa muuqaalka like ku dhiirigeli bye bye